gabadhu si fiican ayay u ogeyd in saaxiibteeda ugu dhow ay ardayda fasalka ku casuumayso safar bilaash ah. Ujeedadeedu waxay ahayd inay hesho fursad ay fayras ugu shubto teleefankeeda kadibna ay lacagta ka xaddo kaarkeeda bangiga. Hase yeeshee ma aysan dooran inay ka shifto saaxiibteed. Taas bedelkeeda waxay si aamusnaan ah u daawatay saaxiibteed oo iska dhigaysa gabar taajirad ah, waxayna ardaydii fasalka u kaxaynaysay goobo kala duwan oo qaali ah si ay ugu adeegto. Asxaabta waa codsi follow isoo dhaha, muuqaal walba aan bilaabo waan dhamaystiri doonaa waa balan. Markii ay aragtay deganaanshaha gabadha, saaxiibteed waxay u qaadatay inay gabadhu wax fikrad ah ka haysan in qof walba uu isticmaalayo lacagteeda, isla markiiba waxay dareentay sharaf iyo faan. Laakiin ma aysan ogeyn inay mar hore ku dhacday dabinkii aargudashada ee ay gabadhu si taxadar leh ugu diyaarisay. Waxaa soo baxday in gabadhu ay dib u soo noolaatay nolosheedii hore. Isla markii uu iskuulku bilowday, saaxiibteed ayaa si kama ah u maqashay teleefan uu aabaheed la hadlayay gabadha, kaas oo ugu soo wareejiyay 10 milyan oo yuwaan oo qarash nololeed ah. Arrintaas darteed waxay gabadha ugu xanaaqday iska dhigidda qof isduldhigaya, inkastoo ay aad u taajir ahayd. Sidaa darteed waxay bilowday inay iska dhigto gabar taajirad ah oo kasoo jeeda qoys magac leh, waxayna si deeqsinimo leh ugu casuuntay ardaydii fasalka inay safar galaan. Laakiin waxay si qarsoodi ah fayras ugu shubtay teleefanka gabadha, waxayna isticmaashay lacagtii gabadha si ay wax ugu iibiso. Kadib markii gabadhu ay ogaatay in qarash kasta iyada laga jarayo, waxay la murantay saaxiibteed. Si kastaba ha ahaatee, qof walba wuxuu u maleeyay in gabadhu ay si ula kac ah u eedeynayso saaxiibteed. Waayo sidee bay saaxiibteed oo taajirad ah u isticmaali kartaa lacagteeda? Xitaa wiilkii ay saaxiibka ahaayeen oo hadiyada ka helay saaxiibteed ayaa gabadha ku canaantay inay masayr awgii dhibaato abuurayso. Iyadoo niyad jabsan, gabadhu waxay qorshaysay inay booliiska wacdo, laakiin saaxiibteed ayaa ku siftay inay aado saqafka sare ee dhismaha, wayna kasoo tuurtay. Dhacdadaas kadib, ardaydii fasalka iyo saaxiibkeed ayaa xitaa markhaati ka furay in gabadhu ay si shil ah usoo dhacday oo ay dhimatay si lama filaan ah ilbiriqsigii xigay. Gabadhii way dib usoo noolaatay, waxayna kusoo laabatay maalintii ay saaxiibteed soo jeedisay inay qof walba safar u kaxayso. Iyadoo daawanaysa saaxiibteed oo si xamaasad leh ugu fidinaysa casuumada, gabadhu way ogolaatay iyadoon wax dareen ah muujin, laakiin waxay si hoose u dhaaratay in noloshan ay ka aarsan doonto oo ay bixin doonto qiimaha falkeedii. Markii ay saaxiibteed aragtay inay safarkii ogolaatay, isla markiiba aad bay u faraxday, waxayna sii dalbatay safar raaxo leh oo qiimihiisu yahay 500,000 oo yuwaan. Arrintaas darteed, ardaydii fasalka waxay si aad ugu qanceen in saaxiibteed ay tahay gabar taajirad ah oo kasoo jeeda qoys magac leh. Wiilkii ay gabadhu saaxiibka ahaayeen ayaa isna bilaabay inuu si joogto ah isugu jilciyo saaxiibteed. Si kastaba ha ahaatee, markii ay gaareen meeshii loo socday ee la gaaray waqtigii lacag bixinta, saaxiibteed sidii nolosheedii hore oo kale waxay cudurdaar ka dhigatay in teleefankeedu uu dab ka dhamaaday, waxayna rabtay inay teleefanka gabadha amaahato. Laakiin gabadhii oo si fiican u diyaar garowday ayaa isla markiiba iska dhigtay qof argagaxsan oo tiri waxay teleefankeedii kaga soo tagtay diyaaradda. Markii ay taas maqashay, saaxiibteed isla markiiba way argagaxday, waxayna weydiisay sidee bay teleefankeeda ku iloobi kartaa. Ardaydii fasalka ee ag joogtay ayaa iyaguna ku qoslay gabadha, iyagoo u malaynaya inay si ula kac ah usoo qaadan weyday teleefankeeda cabsi ay ka qabto in lacag laga rabo. Nasiib wanaag, shaqaalihii madaarka ayaa markhaati furay oo yiri teleefanka waxaa lagu heli karaa 1 saac gudahood. Sidaas darteed qof walba wuu joojiyey murankii. Wiilkii saaxiibka la ahaa ayaa si xamaasad leh teleefankiisa usoo bixiyey si ay saaxiibteed u isticmaasho. Iyadoo aan wax kale u furanayn, saaxiibteed waxay ku ducaysatay in wiilka saaxiibka la ah uu haysto 500,000 oo yuwaan. Marka hore waxay fayras ku shubtay teleefankiisa, wayna bixisay lacagtii. Isla markii ay dhamaysayba, wiilkii saaxiibka la ahaa wuxuu helay fariin ogeysiis ah oo sheegaysa in 500,000 oo yuwaan laga isticmaalay koontadiisa. Part 2 caawa ayaan soo gelinayaa waa balan ee follow isoo dhig. Muuqaalkana like saar.